وهجاج waxaan codsanayaa qof walba inuu indhaha dhankayga u soo jeediyo qalbiga ii furo dhagahana i siiyo mar kale waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa maalin qiimo badan waa maalin qurux badan waa maalin aan dhisayno guri Soomaaliyeed waa maalin aan dhisayno guri laba muslimiin oo iscalmaday dadka iska soo xushay kuna heshiiyay nolosha dheer ee adag in ay dhinaca isla qabtaan kana guul keenaan waxaad halkan maanta oo ay taariikhdu tahay 31 bisha Luulyo ama July maalin axada aad marti u tihiin sidaan idin sheegay wiilka culimada aan laga garanaynin anigana wadi jeedaan sheekh baan u ekahay maanta Burhaan General Abdullahi Macalin Ali iyo gabadha uu soo xushay Nawaal Sheekh Ahmed Sheekh Umar Sheekh Ibrahim iyagaad marti u tihiin anigoo magacooda iyo magaca labada qoys ku hadlaya dhammaantiin dadka meelaha fogfog ka yimid wadamada kale gobolada kale kuwa gobolkan ka yimid ee waqtigooda inoo soo horay waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin waxaa la yiri waxaan bisinka loo qaban baraka ma leh madasha caawa culimadii oo dhan ayaa ku dhan makrofanka inta badan ayaga iskale hadalkaygu koobnaan doona waxaan ku furanaynaa ayadaha quraanka kariimka qowlka eebe waxaynu akhrinaya fadiilatu Sheekh Usmaan Faray oo ka socda masaajidka Daarusalaam ila soo dhaweeyo sheekh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون sidaan idin sheegay madasha culimadii Soomaaliyeed oo dhan ayaa ku dhan waxaan codsanayaa culimada waxa la yiri mikrofoonka hadii la siiyo loogama daba tago marka laakiin haddaan hore u sii afeefanayaa maadaama aan daahnay koox baan isu soo raacin doona haddii alla idmo markaan u yeero sheekh kasta 2 daqiiqo iyo bar baan siiyay iyo hadduu bar kale iga darsado ama hal iyo bar waayahay hadalka ugu horeeya oo soo dhaweynta waxaan siinayaa Sheekh Cabdirashiid iyo Sheekh Cabdisamad Cabdinaasir Xaaji ila soo dhaweeya labadan sheekh iyaga ayaan mikrofoonka u dhiibaya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كلي أيام هاتسن وحان جعلنا هاي أما أن جعل هاي إن نكسر دويو مقع عروسك برهان عبد الله معلن علي أنيقو أذيركيس يا أبتكيس لبضبا
waxaan idinku soo dhawaynayaa qalbi furan waji furan ehelnimo soomaalinimo islaamnimo waxaanan idinka mahad celinayaa sida aad u ajiibteen dacwadii la idin yeeray waxaan idin leenahay jazaakumullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبفضله تتحقق الغايات والمصالح. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحاضرون، تحية وردية محفوفة بالطيب والريحان. أنتم رجال العلم في زمن مضى وكواكب في العلم والإيمان. حياكم الرحمن خير تحية في جنة الفردوس والرضوان. ولا ليال سيدا ولا الكي شيخ عبد الرشيد ويقول ريي ما أنت وحن هالك نتاجنا هاي إن نسور دوينه وأن يدكوا سور دوينه عروسك ولا الكي برهان كهذا اللي يرضى يولاشين أستاذ النوال شيخ أحمد أيان نتاجنا هاي إن ما أنت يدكوا سور دوينه وحن إذا لنا هاي لما أنتين قف كستا منصب كيسة يمر عيسى هكسور دواده وحمان تأدي وضع علماء صاحبة ضيها سيدا وكل الصحافة دي بجوكتا صلادين تي يسراكيشي بجوكا صدهيه قيمها بدنا كمرنين لما أنتي محاندن لنا ولا ليال سور دواده قلبي فرنكو سور دواده هول كان قروح بدن تاريخي هكو سور دواده وإذن كم هذا علينا الجيبتان كأسو الجيبتين عسي النجي يا مرتقات كالنجي هذه أذبان إذن كم هذا علينا إلهي سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم الله يلو. طبعا وحنكوها الله يا نوال أفكار أفتنا وانوها أذير وانوها هي مرك هذه أذبان إذن كم هذا علينا سود وهذا مر لبادي مرسدحات. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sheekh cabdisamed iyo sheekh cabdirashiid. sidoo kale anna waxaan idin leeyahay mar kale soo dhowaada, waqtigiinana waad ku mahadsan tihiin. haddana waxaan u yeerayaa culimmada kale iyagu halkan hadal jeedinta ku qoran. waa rag aan jeclaho saaxiibada iyo saxaafta ka mid ah, bulshaduna ay wada jeceshahay. ma jeclay inaan hal mar soo wada istaajiyo, laakiin waan yeelayaa. waxaad ila soo dhowaysaan sheekh cabdiraxmaan bashiir, sheekh maxamed mursal, sheekh cabdiraxmaan shariif iyo sheekh cabdirasaaq xaashi. afartoodaba halkan baan uga yeerayaa inay igu yimaadaan oo dhinacayga soo istaagaan. hadalka ugu horeeyana sheekh cabdiraxmaan bashiir ayaan siinayaa sidaan magaciisaba ugu bilaabay. culimaa la ila soo dhowaado oo soo dhowaado oo agtayda imaado oo soo socdo oo waay sheekh waxaa la yidhi isaga mataqaanaa dhallinyaraha isaga ku hormar. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على حبيب الله ورسوله وصفوته من خلقه وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحال هريبا لو يري عروس لجمر راجو لجمنا راجو أركا عروس هذا البدر مبهنو وحان صدح كالمدود مركو هوري waxaan ku faraxsanahay inaan joogno aroos ay usuushoodu tahay quwaddii dalka. waa nin janana iyo sheekha saaxiibkaya alquwa alcilmiya walquwa alcaskariya. waa labada arrimood ee ibnu taymiya uu yidhi raximahullah bihimaa taquumu addawlatu walummatu walxadaara. labadaabay dowladnimadu ku dhisantaa, ilbaxnimadu ku dhisantaa, ummadana lagu dhisaa. maxaa yeelay waa asayfu ay alxadiidu walcilmu weeyaan. ummatun bilaa sayf sida soomaaliya imika laska dhex ororday weeyaan. ummatun bilaa cilmina dee meelay fadhida ilaahay baa garanaya. marka waxaan ku faraxsanahay inuu gabadhana dhalay sheekh
callaamo ah inankana uu dhalay nin janara labadoodana halkan baan ka salaamayaa waxaanan u sheegayaa inaan ku faano ciidamada iyo culimmadaba arrinta labaad shacabka tumadee madaka maanta arrinta labaad oon jecelahay inaan ka hadla waxa weeye qur'aankiina waxaa ku qoran wa annahu ay illaahu huwa adxaka wa abka ilaah baa waxna ka qosliya waxna ka ohiya maanta waa yowmu daxik yowmu lbukaa ma ah sababtii loo qosliyay baan meesha u fadhinaa inay u ekaatay geeri maaha waa in la farxo la qoslo la safaado la ciyaaro la kaftamo wejiga ka muuqato adxaka wa abka yaa saa yeelay ilaahay baa yeelay waa min khasaa'is alinsaan yadxaku wa yabka waxaan ka aqriyay culimmada nafsiga alinsaan kaa'in daxaak insaanku waa jiro qosla haddaad qosli weydid waad bugtaa waa jiran tahay haddaad ooyi weydidna waa jiran tahay qaar baa dhahaa dawadii waxaa laga qoray indhaho waxaa layga shubaa dawo si ay indhahu u qalalin waxaan ku ad muslim baa tahay maxaa ku qalaliyay indhaha yabkuuna wayaziiduhum khushuucan maxaa ka cish oy ka kacoohin markaad tukanaysa qadhex ilaahay markaa baraysid oy siidaa ha burqato markaa taasina waa muhiim jiddan markaa maanta waa maxay waa yowmul daxik walfarxa arrinta saddexaad waxaan jeclahay inaan ka hadlo laba arrimood oo ah maqaasidu zawaaj afka carabiga waxaa dhahdaa zawaaj iyo maxaa dhahaa nikaax nikaaxa carabtu waxay tidhaahdaa tanaakaxat ilashjaaru aqsaanu ashjaar geedahan maaragtay laamahoogu markay isdhaafaanay garbaha isa saaraan waxaa dhahdaa tanaakaxat markaasi halkaasaa laga soo qaaday zawaajkana waxaa dhahdaa waida nufuusu maxaa dhahaa zuwijat nafaha isku soo dhowaanaya marka yarkan adeerka u ahay nin sheekhaa lahaa walaalkay walaalka bitida adeer baa tahay ninkan yar oo adeerka u ahay burhaan baa magacaasa maaha libax burhaan maanta waa maalintiisii iyo gabadha nuwaale aan adeerka u ahay nufuustoodii baa istaabatay waida nufuusu zuwijat psychological ahaan way isku raaxaysanayaan way isdoorteen haddana markaa garbahooga istaabanaya caawa maanta xalaal weyn marka iminka la sameeyo kadib bacda daqaa'iq garbahooga istaabanaya taraakaxatil ashjaaru soo maaha waxaa loo baahan yahay nolosha guurku waa nolol macaan eegi dhegaysta waxaan ka hadlayo wax caadi weyn iska qoslina nolosha guurku waa macaan waan ka baxay wuxuu yidhi qur'aanku amba ilaahay uu yidhi kitaabkiisa qur'aanka litaskunuu ilayha inaad xasishaan wajacala baynakum mawadda kalgacayl waraxma iyo naxariis okay aniga waxaan rabaa laba arrimood oo keenta jacaylka iyo laba arrimood oo keenta deganaanta labada arrimood ee deganaanta keenta waxaa ugu horeeya inay labada qofi isfahmaan labo waxaa keenta inay labada qofi marka ay guriga wada joogaan ayna noqon waan kaa cabbaa igama cabtid ay noqdaan xabiibi xabiibati horaan uga sheekeeyey mid soomaaliya oo in adeerkii miyi uga yimiday markaasuu islaantii ku dhahay xabiibati markaa buu dhahay wadaadkii baadiye miyi ka yimiday sala allahu calayhi wasalam wuxuu moodayay nabigii la hadal qaaday laanna nolosha kuma jirta nolosheenna waxa la dhahdo jacaylkaygii beebigaygii habi xabiibati xabiibi waxa kuma jirto kelmaddaa badiya xabiibi nebigu wuxuu qofku jecel yahay innii uxibuk anu waan ku jecelahay mucaad buu ka yidhi oo cumar buu ku yidhi waan ku jecelahay caashuu sheegay inuu jecel yahay jeclaada markaa labadaas mawaddada maxaa kordhiya mawaddada waxaa kordhiyadana laba arrimood oo muhiima arrinta koowaadi waxa weeye gabadha qalbigeega waa inuu inankan burhaan dego gurigeegu gabadha waa halkan deg see u degaysaa waa inay kaa dareento indhahaaga dhegahaaga afkaaga raaxada jirhkaaga gacantaada waxaasoo dhan labo gabadhu waa inay degto qalbigiisa halkay ka degaysaa qalbigiisa raaligelishada markuu ka idhahdo nawaal u dhahdo waa inay tiraahdo waan kuu baahanahay haye waa inay tiraahdo waxaa maa rabaa laakiin waarde naga aamusa waa hadal badan tahay horta waa maxaa tahay waxaasna waa in laga elbaxa weeyaan okay marka waa iska daayey maaragtay waxaan uga tagay saaxiibkay ninkan saaxiib weyn baan nahay xaggana saaxiibkay laayo yaraantii saaxiib aan ahayn oo sheekhiya
علماء وين ذي مينيسوتا يا كان أنت كلين وعد قوتك إن شاء الله جزاكم الله خير إياك إن شاء الله واتهاي عندنا الشيخ مرسل باودي بيه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حفلتان runtii waa xaflad aad iyo aad u weyn anigu waxaan kaga duwanahay culimada kale nawaal halka waxaa fadhiya cabdixakiin iyo cabdicasiis iyo raggii international twin Minnesota International Middle School baa fadhiya principalkii ma arko nawaal ma joogo miya cabdirashiid ma joogo maqan yahay anu macallimiinteedan ka mid ahaa marka sharaf gaara iyo qiimo gaara ii tahay runtii inaan maanta aan joogo arooskeeda maasha allah waxaana leenahay burhaan iyo nawaal ilaahay subxaanahu wa tacaala isu barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo usra naajixa ah waadna mahadsantihiin wajazaakum allah khayr واتهاي آد بدو ما سنتهاي شيخ محمد مرسل هذا نحن ودي ويا شيخ عبد الرحمن شريف بسم الله السلام عليكم ورحمة الله واحد دوني أنا إن بدن إذا كان قاعدين بدو ما سنتين جزاكم الله خير مركب كوبات إلهي وبحمد الله سبحانه وتعالى إن قال مسلمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله مركب لبات وحمد إسكاله نوال يا برهان يا لبدا قيس كسو جيدان يا حفلة ناس كو قروح البدن اسوو كاني ayaa ma hadda iska leh marka saddexaad idinka ka soo qayb galay oo nooga waqtigiin inuu qiimo leeyahay inaad idinkuna soo ajiibtaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inta kadib waxaan rabaa inaan ku idhaahdo nawaal aniga abti baan u ahay marka qaar kood inta badan waxa dhici karta inaan aad u sheegin markaan meelahan oo kale imaado qaraabanimada dadka igala dhaxaysa Sheekh Ahmed oo nawaal dhalay aabihii waa Sheekh Umar aniga ayeeyday oo hooyaday dhashay hooyadeed magaceedu waa Carfi marka Sheekh Umar waa ina Sheekh Ibrahim Carfina waa ina Sheekh Ibrahim way marka nawaal abti baan u ahay qiimo gooni abi marka nawaal noo leedahay oo ii leedahay iyadoo yar oo inta ku kortay akhlaaqdeedu iyo diinteedu fiican tahay waxbarashadeeda meel fiican ka soo gaadhay haddana guri fiican ka soo jeeda waxaan rajaynaynaa burhaano marka gabadhaas ilaahay idinkii inaad meesha ay mudan tahay aad dhigto adiguna nin fiican baa tahayo adeerna waan ku ahay abtina waan ku ahay marka dhan kale laga yimaado marka waxaan rabaa inaad hawshaas meesheeda iyadana dhigto insha Allah taala waxaan doonaynaa guriyaha sidii Sheekh Cabdiraxmaan uu sheegay inay ku dhisnaadaan aqoon inay ku dhisnaadaan is-ixtiraam inay ku dhisnaadaan is-naxariisasho inay ku dhisnaadaan is-dulqaad inay ku dhisnaadaan wada tashi inay ku dhisnaadaan wada lahaansho inay ku dhisnaadaan wada yeelasho iyo inay ku dhisnaadaan Allah ka cabsi subxaanahu wa tacaala ilaahay oo la qadariyo subxaanahu wa tacaala inay ku dhisnaadaan waxaan mar kale idin leeyahay labadaas isdooratay dhalinyarada ah gurigooda Allah barakeeyo cilibtooda Allah barakeeyo gurigi lagu dago lagu nasto Allah ka dhigo gurigi naxariis iyo raxmad ku soo degta Allah ka dhigo gurigi gabadh iyo wiil iyo awlaad baari Allah kala siiyo Allah ka dhigo gurigi qalbigooda iyo maskaxdooda dejiyo Allah ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala gurigi uu isku ilaaliyo isku dhowr Allah ka dhigo wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa rahmatullah وعليكم السلام حدنا سعد الشاخاسي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة أما قيس كمركز الإسرائيل دين الإسلام كمركز في القرآن كي حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم كلمة أسرة كمجرته وحال استعمالها أهل كغفك لكن أسرة واستلاح أي علماء يفقهوا أي نوع اختراعين أو وناكسون وهي وحال هذا أسرة waxay ka bilaabataa ikhtiyaarka ama istoorashada labada qof markay istooranayaan caruurtaada waxaad mas'uul ka tahay maalinta aad waalidkeed ama waalidkiis aad dooranaysa waxaan markhaati ka ahay inta la sheegay iyo inta naqaanaba khaasatan anigu Sheekh Ahmed oo saaxiibkeen aad u aqaano burhaan inuu doortay qoys fiican inuu doortay ma sha Allah waxaan markhaati ka ahay oo waaqic qirayaana
nawaal inay dooratay nin fiican sababtoo sheekh axmed maba yeeleenba inuu gabadhiisa u guuriyin inaan fiicnayn maalinta aad gabadha guursanayso ilmahaaga aad u danaynaysaa waxaan aad ula yaabo waan ku qoslay weliba nin walaalaha ka mida yaa wuxuu yidhi wiilal aan dhalay yaa iyagoo yaryar baa bidaari madaxa ka wada gashay marka wuxuu wiil yar oo dhalan timaba lahayn baan Soomaaliya geeyay saa waxaan la kulannay bi abtiyaashi soo wuxuu arkay niman madax waaweyn oo hal tina aan lahayn suuri aabo nimankaan naagta la dhalatay markaad guursanaysa xageed jirtay waa leeyahay madaxooda ma aragmiya hadda madaxayna adaa ku ciyaaraysan baa u gashay marka xaqiiqada waxa weeye markaad gabadha dooranayso waxaad raadinaysaa qoyska hadiiba madaxii iyo bidaartii la dooray maxaa diinta iyo akhlaaqda u malaynaysan wax weyn waa waxaan leeyahay burhaan baa waxaan ku leeyahay kelimada usra macnaheeda waxaa la yiri min al-asr bay ka timid oo waa xirid waay xabsi way macnaha waxa weeye guriga markaad yeelatid noloshaada dhan way isbedelaysaa xabsi baad ku jirtaa camal dhallinyaranimadii iyo hameenka dhaxii iyo xagga aad iyo saacadaad socotay soo iyo telefoonka aragta isticmaal way dhamaanaysaa marka telefoonkaaga waa laga warqabi doonaa waqtigaad guriga imaanaysa waa laga warqabayaa qofkaad la socotay waa laga warqabayaa waxaad ku jirtaa usra xiran oo qoys baad ku dhex jirtaa ogow marka dhallinyaranimadii nawaal sidoo kale waa inay ogaato dhallinyaranimadii waa dhamaatay waxaan leeyahay oo aan hadalkan ku soo khatimayaa hanii'an lakuma ilaahay baan idin baryaynaa inuu reerkiina barakeeyo oo uu idinku dejiyo oo guurkan uu noqdo guurkii aad ku degtaan oo dhallinyarada idinka dambaysa aad u noqotaan tusaale iyo dhiirigelin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa tahay culimmadu waa mahadsan yihiin way fariisan karaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin jazaaka allahu khayran ilaahay khayr badan ha siiyo culimmada ha loo sacbiyadee maxaa dhacay waa tahay waxaa la yidhi qadada qaboobaysa marka dadkaan hadalka siin doono 30 second baan siinayaa waa mahadsantihiin sida la sheegay waxaa halkan nagula sugan macallimiintii iskuulaadka oo iyaguna halkan nala joogaan jeclahay in aan u wada yeero cabdixakiim dheere oo ka socda iskuulka international schools iyo weliba sheekh axmed mucallim dayib oo ka socda step academy labadaa waxaan jeclahay inay halkan yimaadaan ii soo degdegaan weliba 30 second-koodana aysan ka badsan culimada labadii bar baad siisay annaga maxaa tiri nooga dhigtay godobta waxaan umeynayaa waa mascadda la taallaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيارتا متشرفك كسو قيب قشي أروسكا يا أروسدا برهان يا نوال دمانتي سو دوادا كعم فرنك سو دوادا وحنو مالينا يا شيخ متاجر ويرى إلدو فاي دادك غاركي وحايرها نكون فيشك إنو كدقا هيد أروسكا marka dad fara badan baa taagan raali ahaado aroos culus baa la isugu yimid sida uu sheegay walaalkan mascadde waqtigana waa u yaryahay ana waxaan ka socdaa iskuulka Step Academy oo inawaal ka tahay macallimad afartii sano la soo dhaafay waxaan aan rajaynayaa oon isleeyahay oon hubaa ninka la yiraahdo Burhaan General Abdullahi inuu nin aad u nasiib badan yahay maanta waxa ugu badan ee dhibku inaga haysta waa awlaadda iyo tarbiyadooda qofkii awlaadiisa tarbiyayn lahayd buu xushay hanii'an lahu ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u barakeeyo iskuulku wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood ardada dhigata iyo macallimiinta ama shaqaalaha iyo waalidka saddexduba kalsoonida ay nawaal ku hayaan qof macallin kale u hayaan ma jirto taasaan rabaa inaan idin la wadaago ardada nawaal cunugii kalaaskeeda ka baxa sanadka dambe waalidku wuxuu ku yiraahdaa sanadka dambe macallimad nawaal ma ku noqon doonaa waalidiintu markay ardada qoranayaan kalaaska laba kalaas weeye kalaas macallimad kale iyada ayaa hal fasal wada haya waalidiintu waxay naga codsadaan inaan kalaaska nawaal ku qoro ilmaheeda macallimiinta oran haddii afti laga qaado oo la yiraahdo macallinka sanadkan ugu fiican waa kee nawaal bufarta ku fiiqaya marka nawaal ma sha Allah gabadh qoyska ay ka timid matasha
waxaan rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu isu barakeeyo baaraka allahu lakuma si taqdiim waxaan leeyahay hordhaca baaraka allahu lakuma wabaaraka calaykuma wajamaca baynakuma fii khayr inkastoona weli nikaaxii dhicin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعبد الحكيم وحان كالصعودة وحان كما دادك سوبر باري نوال معلمين دي بان هاي سكول كردو انترناشنال وحان وفرح سنة مانتين عن كسو قيب قولو قبل دايدي عن سوبر باري ناي وولي ومرلبات كسي فرح سنة هاي إذن معلمان نسيتها هاي مركا وحان كلها هاي والله شيء بارك الله فيكم. waxaan kugu aaminay gabadhaas waxaan rajaynayaa kastoo bixi doonta haddii ilaahay ma waanu rumaysanahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin. sidoo kale waxaa mahadsan saaxiibkay sheekh axmed macalin dayib inkastuu sheekh magaciisa la socdo laakiin sidaan aqaanay culimmadu hadday hadasho hadalka lagama daba hadli jirin inta ka dambaysa warka waa loo yareyn jiray. waa mahadsan yahay. waxaad ku dheerdheeraateen gabadhu in ay macallimo tahay macallimiinteeda joogaan aniga waa xanaaqi kastoo yarno wiilku waxa uu wax ku bartay iskuul hoose iyo iskuul dhexe kaga baxay magaalada Kansas Missouri macallimiintiisa waa imaan lahaayeen laakiin diyaaradda ku soo dheeraatay sidoo kale waxa uu ka baxay jaamacadda University of Missouri waana IT marka halkaas waxa is helay aqoon-yahano ummaddu ay u baahan tahay ubad wanaagsanna soo saari doono insha Allah taala waa tahay sacabkaas aad baan u jeclahay lagu celiyo mar kale hadda waxa la soo gaaray halkii ugu wanaagsanayd waxaa laga yaabaa burhaan inuu leeyahay mascadow aniga sheekada dhan iga soo gabagabay gabadha sheekada halay kala tuuro ya hadal badan uma imaanin inuu leeyahay laga yaabaa qalbiga marka dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ba halkan joogto oo isagoo kala ah oo laga yaabo goobaha xafladaha iyo aroosyada inaysan imaanin waxaa la idin barayaa marka dhaqanka Soomaalida marka gabadha la doonayo iyo sida gabadha loo bixiyo sheekada inkastoo ay soo dhamaatay laakiin qaybtan adinka 10 la idinku siinaya waxaan jeclahay inaan mikrofoonka siiyo marka ugu horeysa wakiilka ka socda wiilka oo soo dirsaday kuna aaminay inuu gabadha u doono nin sahlan soo ma dirsan waxa uu soo dirsaday Suldaan Cismaan Kofi alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah dhammaan qaybaha kala duwan ee ka soo qayb gala munaasabadan aad u quruxda badan culimada odayaasha aqoon-yahanka dhalinyarada gabdhaheenna iyo hooyooyinkeenna waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xiga ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala runtii nimcooyinkiisa faraha badan oo ay ka mid tahay midda maanta aan ku sugannahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu sugo kuwa xasuusta oo had iyo jeer ku xamdiyana ilaahay inuu naga dhigo mar haddii la igu sharfay inaan wiilkayga burhaan aan garabkiisa istaago hawshuna ay tahay howl aad u ballaaran waxaan rabaa inaad garbaha i buuxisaan oo dadka Soomaaliyeed meesha fadhiyaan codkooda ku doonta gabadha iyo wiilkuba kalama dhacaan ilaahay baa isu dooray gabadha ruuxeedu waxaan u adeer iyo abti baan u ahay markii hore gabadhaad ba bixiyana islahay laakiin marka arkay wiilka inaan garab istaagaan ku qasbanaaday marka waxaan rabaa codka Soomaaliyeed meesha fadhiya inaan codkooda ku doono maadaama meegi aan hayo waxaan rabaa inaan burhaan gabadha u doono inaad ugu aamintaan ما شاء الله مركان مقع الصومالي إذا كنت دورنا قبض runtii waxaan rabaa anigoo ixtiraam iyo maamuus iyo haddii ilaahay kuu roon yahay wanaagba u haya runtiina dadka aan gabadha ka doonaahu
ay yihiin dad aan aada isugu wada fiican oo saaxiibadeey ah markaan soomaalida aadayana aysan iga hayn baqdin aan ka baqaaye aan rabay inaan xoogaa codka ballaarsado waxaan rabaa inaan anoo ku hadlaya magaca soomaaliyeed una doonaya burhaan jenaraal cabdullaahi macalin cali gabadha la yidhaah nawaal sheekh axmed sheekh cumar sheekh ibraahim sheekh axmed taajir inaad isiisaan gabadhaasna siisaan anoo codka soomaaliyeed ku hadlaya magac soomaaliyeed nagu siisaan insha allahu tacaalaa haddii sida aan rabno ilaahay uu ka dhigo oo gabadhana la siiyo annagoo ilaahay u mahad celinayna dadkana siiyana u mahad celinaynana waxaan rabnaa in nikaaxa noogula daro insha allahu tacaalaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qof kastooba meeqaamkaad ku fadhido ayaan kugu salaamay ood ku mahadsan tahay ma idin kala qaadqaadi karo wakhtiguna waa yaryahay intaa haddaan ka gudbo maanta xafladan waxaa isugu yimid qaybihii bulshada labeenteeda ahayd oo culimmadu ay u horayso oo macallimiinta waxbarashadu ay ku xigaane ama dhinac diimeed leh ama dhinac duunawibe leh culimmada iyo qaybaha waxbarashada waxay yihiin marjaca ummadi meelay ku nooshahayba ay u noqoto siiba islaamku gurigaaga oo ay ku nool yihiin 10 ilmood oo 10 kuba baabuur ay wataan oo subaxdii kala shaqo tagaan oo bari iyo galbeed iyo koonfur iyo ay afarta jaha u kala shaqo tagaan subaxdii markay shaqada ka soo noqdaan waxay isugu yimaadeen guriga culimadu waxa weeye markaynu kala tagno gurigii aynu u soo noqonaynay weeye ilaahay hay noo barakeeyo kuwa diinteedana ilaahay inagu anfaco hay naga dhigo diinteena inoo hayaan ilaahay hay nagu anfaco dhalinyarada wax baranaysa caruurta yaryar ee inoo baraysa iskuuladana iyagana Allah ha barakeeyo nawaal aniga caruurtayda ayay macallimiin u tahay iyo labadii wiilkii hadda u dambeeyay caruurtayda macallimiin u yihiin sida uu sheegay nawaal waxbarashadeeda ay ilmuhu u jecel yihiin waa soo u sheegay inta haddaan ka gudbo waxaan u soo noqonayaa waqtigu waa yar yahay ujeedadii aynu isugu nimid burhaan jenaraal cabdullaahi macalin cali oo la ii weydiiyey nawaal sheekh axmed taajir cumar ibraahim bal hadda ogaada oo sheekh axmed taajir waa xaaji sheekh cumarna waa xaaji sheekh ibraahimna waa xaaji ilaa laga gaadho sheekh barakaale oo qabiilba ah xaaji barakaale qabiil Soomaaliyeed uu ku yar yahay oo intaas oo xaaji oo silsilada isku daba xidhma waxa weeye gabadhu waxay ka dhalatay marjici aynu u noqonayna xagga islaamnimada iyo diinta wiilkuna kama dhaco oo waa generaalkii wadanka iyo wixii loo baahnaa difaaceeda ku jiray caruurteena Allah ha isu barakeeyo rag iyo dumar barag dadkiina dhalinyarada ah meesha yimidowna de bustihii uu ka kacay baa la idiga baahan yahay idinkuna inaad joodariga ka kacdaan wax raadsada haddaan soo noqdo saaxiibkay i weydiistay suldaanka anigu waan isnaqaanaa meelo badan baan isku hardinay suldaan koofi meelo badan baanu iskaga hor nimid suldaan ma isku dhan baynu u soconay wixii hoose ha sheegin suldaan koofi gabadhii aad weydiisatay nawaal sheekh cabdiraxmaan sheekh axmed taajir sheekh cumar sheekh ibraahim sida aad ii weydiisatay aniga oo ka codsanaya dadkaas magacooda aan ku hadlayo inaan bixiyo soo raalli kama tihdin gabadhii waan ku siiyey meherkii aad tidhi ha lanoogu darana waan kuugu daray mar dambana ha soo kicin sidaana ku dhammayso gabar baan ku siiyey hana soo kicin caqli maahane waa kaaga mahad celinayaa insha allahu tacaala
waa ka mahad ilaahay baan uga mahad celinaynaa dadka Soomaaliyeed gabadhan ila doonay ila siiyana waa uga mahad celinayaa ehelkii iyo qaraabadii nasiyana waa uga mahad celinaynaa insha Allah taala waxaan leenahay ilaahay ha isu barakeeyo ubad khayr qaba iyo hadii ilaahay kuuradad iyo deeqba Allah siiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا واحد جعل هنا الميكروفون كأودي بو شيخنا شيخ حسن محمود شيخ حسن جامعي وشيخ كذي قروح ذا بدنيد وكدر الدور يسقى قرنيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هاشي ماشي اللي سويه مد النكاحة سنقول ما يسترنا أن أددجينه إلهي إذن كيسة وحن ميكروفون كأمودي بيا الشيخ أحمد الشيخ عمر الشيخ إبراهيم أبها نوال الشيخ أحمد إن وكالتي قبل داسي أن كمهرين لها ويقوريجيو. جزاك الله خير الشيخ حسن الجامعي انت انا وصو قدبنين لما قيبها كلا دواني بالشبه اي وهو الريان علماء الدين كالصومالية ضمان كان عيد كما قالن او حولها سوى باجين فربضان وكم بيضا صلادين في عقاش الصومالية ضد قبل فربضان وكي من مرايكن لبدا قيسود ضد كي من مال كم حسن مرايكن كي من حفلات درادد بهذه الله يرضى بهذه معلمين لما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أنا ولا بدك يسوى بكره اللي ما قعد واني كم بعد نقينا أنا صار شرفتين الله إذا شرف شيء حسن قبل دلالي طبعا هو يا دشان أبون بان هاي هو يلا كحوين مسعد شيء بنو مالين وحاويان نوال أحمد شيخ عمر شيخ إبراهيم walaayadeedii waan ku wareejiyey si aad ugu nikaaxiso wiilka aan aabbaha u noqon doono burhaan jenaraal cabdullaahi macal cali jazaaka allahu khayran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مركور إلهكم أهدنا يا فرصدان إسيي أو فرصد آد قالي وأه حفلدان آد وينك بدن أو بركيسن إلهي سبحانه وتعالى فرصداسي نوذسيي أنه قوني أهان waxaan mahad weyn aan u jeedinayaa Soomaali weyn walaalaha halkan jooga ama kuwa daawanayo hadda sheekhu ii tusiyay oo labada dhinacba si Soomaalinimo ah oo walaalnimo ah gabadh isu siiyay isla markaasna codsaday in la soo gabagabeeyo oo meherkii iyo aqdigii in la sameeyo nikaaxi in la sameeyo waxaan si gooni aan mahad gooni aan u jeedinayaa saaxiibkayga walaalkay Sheekh Axmed Taajir iyo walaashay Xaliima oo igu sharfay gabadhooda inaan ku mehriyo Burhaan waxaan kaloo sidoo kale familka Burhaan aan dhammaan hooyo si gooni ah iyo familkoo dhan aan ugu mahad celinayaa inay igu sharfaan nikaaxan inaan sameeyo marka وجودجلنا إن شاء الله نكاح سامعنا هدو إله يراهدو الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم الزنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يقول الله عز وجل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نبي عليه الصلاة والسلام وحي الله يرضى والله الله يو لأن يري هاي جورسدا هذا كري كرتان قف كان كري كرينا صوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام جورسدا المسلمين أهدلها وإن قفانا يا مان أنت قيامة. برهان جنرال عبد الله معلم علي. Are you ready؟ أف صومالي الديار متى هاي؟ ديار. أف عربي مستعد؟ مستعد. الحمد لله. برهان جنرال عبد الله، زوجتك وأنكحتك نوال شيخ أحمد شيخ عمر شيخ إبراهيم بوكالة وليها الشيخ العلامة شيخ أحمد وأبيها وإذنه إياي، وبمهر 6000 دولار أمريكي على كتاب الله وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هل قبلت هذا العقد والمهر؟ قبلت هذا المهر والعقد. صاد أفهم وات فهمتي سان أحقيجيو إنجليش أهان. I just did perform the marriage contract between you as Burhan General Abdullah Muallim Ali and Nawal Sheikh Ahmed Sheikh Umar Sheikh Ibrahim with his permission and her consent, with dowry of $6,000 American. Do you accept this marriage contract? Yes. Ab Somali meherkan caqdigan iyo meherka la socdo ee 6,000 ah anoo wakiil ka ah Sheikh Ahmed Sheikh Umar Sheikh Ibrahim oo weliga aabaha gabadha ah idinkiisa iyo iyadoo raali ka ah oo aan kugu meheriyay gabadha Nawal Sheikh Ahmed Sheikh Umar Sheikh Ibrahim adigoo ah Burhan General Abdullah Muallim Ali. كتابك إلهي سبحانه وتعالى سيدا وافقسن يسون النبي عليه الصلاة والسلام مهركن وياهي لحكن أو دولار كمريكان كأه إلهين ومرخاتك ياهي انتنا مرخاتك يهين عقد جاسي مهر كاسي ما أقبل شيء وحل عقد جاسي يو مهر كاسي وأنا أقبل تكبير تكبير تكبير. waxaan ku soo gabagabeynayaa aan rabaa aamiin inay la dhahdaan baaraka allaahu lakuma iga daba dhaha baaraka allaahu lakuma wa baaraka allaahu calaykuma wa jamaca baynakuma fi khayr wa billaahi tawfiiq. mar kale sacabka Nawaal iyo ha loogu celiyo Burhan. waata aad baad u mahadsantihiin. haddana waxaan rabaa in magacyada aan idiin sheegi doono aad si weyn igula sacbisaan. waxaa sharaf noo ah wiilka iyo gabadha hooyooyinkii soo barbaariyey inay iyaguna nala joogaan. hooyada Nawaal Xaliima Macallin Maxamuud.
iyo burhaan hooyadii canab sheekh yuusuf. waxaa kale oon iyagana rabaa inaad u sacbisaan habaryaraha labadooda oo ka kala yimid ingiriiska iyo Holland. haddii aan ku hormaro habaryarta Nawaal Ruqiya Macalin Maxamuud iyo habaryarta Burhaan Raxmo Sheekh Yuusuf. waa tahay haddana waxaan samaynaynaa ducadii loo ducayn lahaa reerkan in Ilaahay barwaaqeeyo barakeeyo culimadii Soomaaliyeed oo sidaan idin sheegay xafladan aad u buuxa ayaan qaar ka mid ah rabaa haddana inaan u waco. hal mar baan u wada yeeraya halkan ay soo istaagayaan. waa Sheekh Sacad Rooble, Sheekh Axmed Buraale, Sheekh Tawakkal Ismaaciil iyo Sheekh Nuur Haadi. afartaas culimada ahna ila soo dhaweeya. way soo koobi doonaan waa u ducayn doonaan oo kaliya. marka culimada sharafta badan ee halkan la jooga iyagana makrofanka Sheekh Sacad oo dhankayga soo xigo u soo dhow baan u dhiibayaa. culimadana ducadooda ha la dhageysto oo aamiinta ha loo guro. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد ما تبرهات ويك عضي ارتقاضي بالسوي وقضي إني يورك أنت اللي تعين أيوه بل ويرك هذه هذا اللي يقضي اسمه مرتين ويرك هذه علمها الدعياني برهات إن لك عيسى وما دوامك عضي تكبير الله أكبر وأربع الحجة تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الإسلام والنعمة الإيجاد والنعمة الإيجاد. الحمد لله على نعمة الإسلام والنعمة الإيمان والنعمة الإيجاد والنعمة الحفلة. تكبير الله أكبر. انت أبي إلهي منك شكرينا مركا حفلة كعمامة قيمها هي قاية هي لهذا هي يعني محاك ولا شرفتي هي كرامة أمة مسلمة الصومالية دولن. نوالي برهانو استورتي مرتقات كودا كسو قيب قري هي الله بدا فاملي كراميسن سيدا الشيخ أحمد تاجريو هي جلال عبد الله كل قدبة أي كراميسن يهين. الحمد لله كوع مابدا إلهي بينكم أنايه فالحمد لله إن شكرتم لأزيدنكم ولا كفرتم من عذاب الشديد. الحمد لله يعني نحن أنت كبعدي هذا الكي يا مرتدي يا شرفتي يا كرامتي يا قويسك يا لبدا نعي يا وحي يا ددك Soomaaliyeed sharaftooda waa la sheegay laakiin hal midun baan nawaaliyo iyo burhaan kula dardaarmaya maadaama ana hay maxaan ku yiraahdaa waalidiintooda saaxiibkood ana hay waxaan kula dardaarmaya gurigoodu inuu gurigii rasuulka noqdo. gurigooda guri rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo amarka ilaahay lagu qaato oo dariiqa rasuulka lagu dhaqo iyo sunnihii nabiga calayhi salaatu wasalaam. intaasaan ku dardaarayaa. marka alxamdulilaahi mar labaad la in shakartum la asidanakum culimada kale aan ku wareejiyay. wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله إن شاء الله تعالى قضي باللبطي هذا الدير مقلين لك واحد رباه ريم من الصودا مساجد كأمة الإسلام قبره حافظ القرآن ومعلنا هذانا تخترضه أي استيت كلنا كحيستي ولا شيء يرضى اللي يرضى ريم من الصودا وتعسيين يا لا دام قبلي مد النص وبحذا استيت وقاضنا يو وعواتان علماء قفك كفوا هذا إن قبلها أقوانت لا يوحبرش هذا لا إني كفوا جانيان مرك علماء الله حرمه توا تاوي وعرفنا إن شاء الله تعالى أنه كوه الله ينمجع علماء وعن هل كان ربنا إن فرين وقدرنا برهان وعوجور سدي وضل علماء إنتاس مرقاتي كا إنه مرك قبل ده حنانين تذا إلالين تذا دخالين تذا واجب سي صارنين إنه قنيسو إلهنا يسوع بركيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد وحن ربا كليا إن أنو كل كوريدا هذا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. طلبات إن ربنا شيء قبضة ولقوا العليي
adeerka u ahay inay tahay mutacalimad wiilka waa lagu celceliyey inuu yahay mutacalim yahay laakiin waxaad ogaataan kreditka ugu weyn horta xamdiga ugu weyn ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala laakiin labadooda hooyo waxaan rabaa wadaad ha la ii sacbiyo le horay maydaan u arkin soomaal labada maamo ha loo sacbiyo maqashiyo horta labada maamo intay ka soo saareen elementary ilaa heer jaamacadeed wada ee midkood waliba successful yahay ee waddankan jooga in loo sacbiyo jazaakumullahu khayran jazaakumullahu khayran jazaakumullahu khayran labada maamo iigu duceeye ilaahay ha barakeeyo labadooda aabbana iigu duceeye ilaahay ha barakeeyo ilaahay iyagana dhexdooda khayr ha dhigo allahuma salli calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasallam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أنا قلبا النقطة يربان أولاً ومدى أورتا هلا بينا مقن وحال شيء والدكي يو معلمينتي يو اسكولدي لكن أورتا معلق قراك لما شيء أورتا معلق قراك أورتا لما شيء قبلها يويلك معلم بس سوبر باري قراك أورتا وكتك تين أورتا قيب تاس هلا إلى الصبح يعني أنا معلمين القرآن كصوبر تورط نقطة كلام كنت أنا وحوي ما بدنا هي أفر شيء بالله شيء أو أبها قيسكود كو أبترسده أفر تاشيش كل كي شيخ أحمد تاج لا شيء أو شيخ إبراهيم لا شيء أو شيخ كلا لا شيء أو إذا حارج بركة لا قال وحي لم تيجي وكله وقت النبي الله يوسف أفرت لا شيء نبي يوسف ودكتهين وحلو شيء ونك كليا يكو أبترسد أفر نبي شيخ هذا وحو قبله أي مرتبة يسكود أنت جرال كذا ما قال لك يوحنا ملينون يسوون إنه نكدي عم بارو ملين أيام مركب ولا ليال أنت الله بدأ ساربين هذا كل دارو نقطة قدام بيسنا ختامه مسكون وين قرآن كسميدا أنا ختامه مسكون بقول جدا مركب دعاء وحنا ملين ختامه مسكون كبان للسيء آمين ده هرتي إلى يدبجين هذا إلهي دمجنا الله خيرك إلهي سبحانك ويلك يا جبنا إلهي سبحانه وتعالى كوي أولاد في عني ولا إلهي كلاس إلهي كنيو تلك سوبر بارية ووالد كوجه الرئي أباه يوينك إلهي يجنا ميزانك حسنات وقدره مجتمع كسوقيب قالوا لنا يجنا إلهي سبحانه وتعالى ميزانك ده وقدره تلك مالها كي من ديارات صور راعي أما بابور صور راعي أنت أيسي سعودي أنت صار ميزانك إلهي وقدره أنا جنا إلهي سبحانه وتعالى إماتك كانوا النمد حفلة الدت كسوق قبل عنه كمان ميزاك هنو قدروا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله علماء كلا أيان لجوج هالكن وأن كجاري ويني إن هذا الكسينه لكن وحنا رباينا علماء اسمعوا عود حسو وهذا دات كرتان أوسع بسان هديك لنا هدوكا علماء أن شيء يو وحكم ذا صاحبك الشيخ عبد الرزاق صنعاني علماء الله صعب محاد عساك الشيخ عبد الرحمن هاقف الشيخ موليد يا الشيخ رساد نوح سيدو كله واحد جوجا الله يردني وأنا أركي يجنا أمين هارون يو أغيارتي كلا وننو هالكن جوكته يجنا عبد الناصر يسقون إنه جوجا نو مالينا يوم أركي عبد واحد أو يسقون معلمين تي مساجد كم ذا وما سورة قال إنه يماذا لكن ما قعيس أنا أخوها الليا وحان إذا وما هسنتهين سيدو كلا واحد جوجا عثمان عرو سياسي دورشنا كجرا نكاسن هلا وقادو وحان إذا أنا هيدا مانتين أنت أنا مقعود الشيءين هل كان كسر قريب قالي مقام كلا سمعة له شرفت له ولما الشيخ حسن معلم كترتن كقرآن كان هل كسوق جيدا يسقونا إمام الشاطبي ترتن كود هذا أيو سعداء الشيخ حسن يسقنا هلو صعبيو شغونا أكسبوها يا نكاسي ما شاء الله وعلماء ناتكو جعلها يكمدي هاي مركلة حفلة دين وإنما يسترنت هاي وانسوق كوبني وما سنتين كسوق بقول